puntland maxay haddaba aragtaa puntland waxay aragtaa tan iyo markaas in dalkaani uu ku jiro geedi socod siyaasadeed oo 4 sano soo socota ay muhiim u tahay in loo tago iyadoo heshiis la yahay oo heshiis laga yahay habka dawladdu u dhismayso sida awoodaha loo qaybsanayo sida resource-ka loo qaybsanayo dalka meeshu aadayo oo dastuurka waxyaabaha la yiraahdo qabyu ka yahay saldhig u ah haddii intaas oo la sameeyo la yiraahdo dalka doorasho la gelinayaa oo dalka dhanba hal goob uu noqonayaa oo dalka dhan hal maaragtay xisbi buu noqonayaa oo ku guuleysanayo oo xataa lagu dhacay sharcigaas lagu dhago madaxweynaha dadweynaha dooranayo oo dastuurka waxyaabihii fundamentalka ama asaasiga ama mabaadi'da asaasiga la hareer maro horta halkaas waxa ka soo baxaysa koox rabto talada dalka inay xoogto aniga saan u akhriyo waa saas